السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحبرنامج كان هو مقعدنا امتحانها بريا دحيا انو qaybtiisa koowaad ku eegi doona dilkii Yaasir Carafaad iyo sidoo kale qaabkii loo dilay iyo cidii ka dambeysay iyo ugu dambeyntii qaabkii loo xaqiijiyay dilkiisa annagoo dul istaagi doona goobo kala duwan isla mar ahaantaasna soo bandhigi doona barnaamij ay diyaarisay shabakada Al-Jazeera laanteeda af Carabiga idinkuna soo turjunay luqadda hooyo. Yaasir Carafaad waxa uu ahaa madaxweynihii dalka Falastiin oo dhintay 2004 waxaana sidoo kale xubna firfircoonka ahaa kooxda PLO loo yaqaano ama loo soo gaabiyay kooxda dhaqdhaqaaqa xoreynta Falastiin. waxa sidoo kale uu ahaa xubin kamid ah asaasayaashii kooxda Fatah isagoo sidoo kale door muhiim ah ka soo qaatay siyaasadda Falastiin iyo sidoo kale u dhaqaaqida xuquuqda shacabka Falastiin. waxaana sanadii 2004 ku dhintay dalka Faransiiska isbitaal ku yaala taasi oo la sheegay in uu dhintay xanuun soo waajahay ama sidoo kale in ay soo gaadhay qayb kamid ah sunta maadada loo yaqaano poloniel. haddaba bandhigani waxaynu ku qaadi doonaa sunta lagu sumeeyay nooca ay ahayd iyo sida ay wax u dhaceen. markii uu dhintay Yaasir Carafaad allaha u naxariistay madaxweynihii Falastiin waxay shacabka reer Falastiin aaminsanaayeen in madaxweynahooda la dilay, balse markii la aasay waxa la aasay cadeymo fara badan iyo sidoo kale su'aalo badan oo ah qaabkii loo dilay iyo ciidii dishay. ilaa maantadan aynu joogno shacabka reer Falastiin iyo madaxdoodu waxay aaminsan yihiin in la dilay madaxweynahoodii halyeeyga ahaa Yaasir Carafaad isla mar ahaantaasina loo dilay qaab sira iyadoo lagu dilay maada suna oo kamid ah sumaha nooca khatarta ah. waxa sidoo kale madaxda Falastiin ay aaminsan yihiin iyagoo aan xadidi karin ama aan si cad u sheegi karin cidda dishay in ilaa hadda Yaasir Carafaad ahaa qof la dilay, iyagoo sheegaya in daqiiqadii ugu horeysay ee lagu dhawaaqay dhimashada Yaasir Carafaad ay rumaysnaayeen in la dilay maadaama oo ahaa nin khatar ku ah ammaanka Israa'iil oo Israa'iiliyiintu ay u arkayeen nin dhibaato ku keenaya shacabka reer Israa'iil ahaana nin siyaasi oo beesha caalamka ka dhaadhicin kara qadiyadda Falastiin. Nasir Qudwa waa walaalka Yaasir Carafaad waxaana uu waqtigaasi ku mashquulsanaa waa sanadii 2004 sidii uu noqon lahaa wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Falastiin, halka uu walaalkii Yaasir Carafaad ay ku nafbaxay dhakhtar ku yaala dalka Faransiiska oo ay leeyihiin ciidamada militariga ee dalka Faransiisku. waxa xilligaasi isaga iyo xubnihi siyaasiyiinta ahaa ee wadahadalada kula jiray Israa'iil ay aaminsanaayeen in la shirqoolay isla mar ahaantaasina lagu hayo weerar khatar. waxa uu ninkani sheegayaa in 4 ilaa 5 oo ahayd goor habeenimo isla mar ahaantaasina ahayd 4 ilaa 5 bisha uu dhiman doono Yaasir Carafaad uu la soo xiriiray Nasir Qudwa oo ku sugan Paris oo caasimada dalka Faransiiska. waxaana uu sheegay in uu soo garaacay ilaa 5 subaxnimo isagoo uu sheegay in uu garaaco qunsuliyadda Mareykanka uu ku leeyahay halkaasi si ay ugu wargeliyaan dowladda Israa'iil inay soo gacan geliyaan maadadii lagu sameeyay Yaasir Carafaad. waxaana uu sheegay in uu la xiriiray uu ku wargeliyay in ay ka codsadaan iyagoo aaminsanaa in uu badbaadi karo, balse xaalku uu isbedelay markii dambe ee ay u suurtageli weydeen in maadadii helaan. waxaana uu sheegay in ay dhacdadaasi ahayd dhacdo xaqiiqo ah oo murugo ku reebtay xusuustiisa. intii ay madaxda reer Falastiin si dhuumasho u raadinayeen inay helaan maadada lagu sameeyay oo ay ka dalbariyeen dalka Israa'iil inuu soo gacan geliyo, waxa uu xaalku ahaa mid dhakhaatiirtu ku dadaalayaan inay badbaadiyaan Yaasir Carafaad isla mar ahaantaasina ay u fududeeyeen inuu ka badbaado xaaladani, balse kooma dheer oo muddo ku jiray. waxa markii dambe dowladda Faransiisku soo saartay shahaadada dhimashadiisa iyagoo oo muddo kadibna uu gacan geliyay meydkiisii madaxda Falastiin, iyagoo markii dambe uu la soo wareegay gudaha magaalada Ramallah oo ah magaalada lagu aasay Yaasir Carafaad. base waxay Falastiiniyiintu ku adkaysteen Faransiiskana u bandhigeen in la qalo meydka Yaasir Carafaad si looga helo wax cadayna. dhab ahaantii waxa ay sheegeen inay adkayd in la qalo hogaamiye door muhiim ah ka soo qaatay dalka Falastiin xoreyntiisa iyo sidoo kale ammaanka dalka Falastiin, laakiin ay markii dambe go'aansadeen iyadoo aan Faransiisku markii hore dhaadanayn in la qalo oo ay muhiim tahay qalitaankiisu. balse xaalku waxa uu isbedelay markii ay warbaahintu faafisay warar been abuur oo ah in Suha oo ahayd xaaska Yaasir Carafaad ay diiday in la qalo meydka saygeedii hore dhintay. waxaana iyada oo ka jawaabtay ay sheegtay in aanay marnaba ku fikirin isla mar ahaantaasina aanay diidin in la qalo meydka saygeeda si loo helo cadeymo dheeraada, bal ay ku adkaysatay in la qalo halka ay diideen xubno kamid ah qoyskiisa sida Nasir Carafaad oo ah walaalkii Yaasir Carafaad wiilka ka yar ahaa. أنا sidoo kale dhammaan madaxda reer Falastiin ay aaminsanaayeen in aanay soo hadiidin in la qalo meydka saygeedii hore
sidoo kale waxa uu xaalku ahaa mid aad u adag markii la isku dayay in la qalo lana gulagalay qalitaankiisa laakiin aan wax natiijo laga gaadhin taas oo socotay muddo 8 sanadood balse markii dambe ee Al Jazeera baahisay in la isticmaalay maadada polonium oo ah maadada aad u khatar ah kana mid ah maadooyinka sunta ah ee wax lagu dilo taasina ay keentay inuu dib u soo laba kacleeyo go'aankii ahaa in dib loo baadho Yaasir Carafaad meydkiisa dibna loogu laabto xaqiiqada ah in la helo cadeymo dheeraada halkani waa magaalada Ramallah ee la haysto waana bartamaha sanadii 2012 waxa culimo ka tirsan iyo baarayaal ka tirsan dalka Switzerland ay u soo kicitimeen in dib loo baadho meydka Yaasir Carafaad si loo helo xaqiiqo dheeraada iyo cadeymo dheeraada oo tibaaxaya in helitaanka Yaasir Carafaad ay keento in la helo qaabkii uu dhintay iyo maadada la isticmaalay waxana ay sheegaan sidoo kale inay muddo dheer u aasnaa meydka Yaasir Carafaad taasina ay suura gelin karto in la waayo maadada polonium ee la isticmaalay isla mar ahaantaasina ay adkeyn karto xaqiiqada in dib loo soo baadho kadib waxa la go'aansaday in la soo saaro meydka Yaasir Carafaad halkani waa Dowxa caasimada Qatar waana isla sanadkaasi 3 bishii Juun ee sanadii 2012 waxa Suha oo ahayd gabadhii Yaasir Carafaad haddana uu qabo Naasir Carafaad oo ah walaalkii ay aaminsan tahay in ay doonayso in caalamku soo bandhigto xaqiiqada halka Naasir uu doonayo in la iska dhaafo arintani balse goor dambe ay ku adkaysay in xaqiiqada daaha laga qaado waxana Suha ay sheegtay in Naasir yahay nin diblomaasi oo ixtiraamayso go'aankiisa maadaama uu yahay ninkeedii laakiin ay doonayso in caalamku u bandhigto dhibta loo geystay ninkeedii hore iyo qaabka loo khiyaameeyay bulshada reer Falastiin باريس عاصمة فرنسيسكا واللي جولاي إسلا سنة كاسي كدي مركي صدح مع الموضوع كهور لباهيي إن ياسر عرفات دي بلو باري دونا حقيقة ديسا وحد دولة فرنسيسكو أي قانستين لسمايو فيلم كترجمية حقيقة ياسر عرفات يسدو كالقاب كيلو ديلي يقو أو شاقين يكبر برتاقيين الجسيرة يحبنها دونين باران حقيقة وحنا تاساي كنتي إن محمود عباس ومدحوينها حكومة فلسطينيين والله كلمو مدحوينها عصبة واختياسي فرانسوا أولان أو شيء إني كثير هجرب تاجيه إن يدعى قادن حقيقة دوكمنتري فيلم لصوبان ديجو كوسابسان دير كياسر عرفات يقابكي وردنتي وإسلا طبنكي بشاسي سوها waxay soo gaadhay caasimada Paris ee Faransiiska waxaana ay maxkamad ka furatay isla dalkaasi oo waxa dalkii uu ku dhintay madaxweynihii Falastiiniyiinta ahaana saygeedii iyadoo ay looyaradu kala dooranayaan doorashooyin kala duwan waxaana ay haysataa dhalashada dalka Faransiiska waxaana ay sheegtay in la kulantay mid kamid ah looyarada ugu khatarsan ee caasimada Paris ku sugan isagoo arrinkani ku adkaystay inay daa qaadi doonaan xaqiiqadana soo bandhigi doonaan waxaana uu isagu intaasi ku daray in ay jiraan qaabab isxuseeya oo siyaasad ahaan sirdoon ahaan iyo sidoo kale qaabab kale oo kala duwan oo loo sameyn karo hawshani balse dhammaan ay cadaalad u simeeyeen muhiimna ay tahay in la soo bandhigo xaqiiqada Yaasir Carafaad
dowxa caasimada qatar waa mar kale iyo 22 isla bishaasi waxaana ka soo qayb galay kulan jaamacadda carabtu ay leedahay hogaamiyeyaasha Falastiin iyagoo ka biyadiiday dhowr jeer oo Al Jazeera la xiriiday inay la kulmaan waxaana hogaaminayay Maxamuud Cabbaas oo madaxweynaha waqtigaasi محمود عباس waxa uu degay kaarta kale oo ah in aanu bandhigin xaqiiqada laakiin uu sameeyo guddi isku dhafa oo ka howlgasha hawshani waxana uu sheegay inay uu xil saari doono arrintan golaha ammaanka ee qaramada midoobay lana horgeyn doono si loogu saaro guddi ka kooban xubno kala duwan oo baadha xaqiiqada arrintan iyo dilka Yaasir Carafaad madaxda reer Falastiin ay isku dayeen inay xaqiiqada horgeeyaan golaha ammaanka ee qaramada midoobay iyagoo sheegay baaritaanka iyo xaqiiqada duubista filimkani ee Al Jazeera inuu yahay mid la dagaalamaya guusha iyo in laga guul gaadho xaqiiqadaasi Paris marka la caasimada Faransiiska waxa suha iyo xubnaha la shaqeynaya iska baalmareen arrinka madaxda reer Falastiin waxaana ay sheegeen in aan la suugi karin muddayntaasi ka badan maadaama oo daliilka la haysta ama caddeyntu ay tahay sun isla markaasna ay baabi'i karto saacad kasta daqiiqad kasta iyo maalin kasta waxa sidoo kale suha iyo kooxda la shaqeynaysa ay go'aansadeen inay maxkamad ka furtaan isla Paris iyagoo uu gacan gelinaya cadeymaha ay hayaan mid ka mid ah xaakimada ama garsoorayaasha ka shaqeeya maxkamadda Faransiiska 28 bishii 8 isla sanadkaasi waxa qaadiga arrintaasi gacanta ku hayay uu soo warceliyay jawaab isagoo sheegay inay aqbaleen in la sameeyo baaritaan ku saabsan dilka Yaasir Carafaad iyo qaabkii uu dhacay afariyo tobankii bishii September waxa saddex kamid ah xubnaha garsoorayaasha sarsareed caasimada Paris ay oggolaadeen in la baaro arrintani iyagoo sidoo kale bilaabay baaritaan rasmi ah waxaana suha oo ahayd gabadha Yaasir Carafaad looga yeeray maxkamadda iyadoo sheegtay in la weydiiyay su'aalo ay ka mid yihiin cuntadii ugu dambeysay ee uu cunay cidda garanaysa waxaana ay ku jawaabtay in aanay garanaynin maadaama aanay ku sugnayn goobta waqtigaasi ay ka maqnayd isbitaalka uu ku jiray Yaasir Carafaad 25 isla bishaasi waxa ay xubnihii baarayaasha hadaah qaadeen iyagoo tagay isbitaalkaasi in la helay cadeymo kale oo dheeraada balse suha waxa ay sheegtay in xaqiiqadu aad u adkeyd isla markaasna ay qaraadheed maadaama aanay haynin cadeymo ka kooban kaadi saxaro dhiig iyo wax lamid ah taasi oo lagu baari karo qaabka loo dilay Yaasir Carafaad iyo sidoo kale sunta la siiyay balse waxa ay sheegtay in xubnahaasi ay heleen cadeymo kale oo biology ama kiimika oo jirkiisa ka mid ah kuwaas oo ilaa 100 nooc ka koobnaa laakiin taasi aanay la hadda qaadi karin xaqiiqada ah maadada lagu dilay oo lagu sheegay poloniel laakiin lagu daba jiro balse mar dambe la helay cadeymo kale oo dheeraada waxaana booliska Faransiisku ay sheegeen in la tirtiray dhammaan cadeymihii iyo xogii la heli lahaa si loo baaro xaqiiqadaasi balse cadeymaha kiimikada ee la helay maaha kuwa ku filan la hadda qaadida xaqiiqadani waxaana loo baahday in la tago Ramallah oo ah halka uu ku haasan yahay Yaasir Carafaad وبشي أكتوبر وحنا أفر الله شام بلود كسو وريجين ملك الجزيرة بهيسين الشيء عظيمة ديرة هذا علم هذا يسويسر لنا ما بعريا شو الشيءين إن له اللي كروقاب كيلو دليل ما دلوا دليل ولا شيء بلونيل وحنا هذا qabriga iyo qaabkii loo aasay midna aan iska bedelin sidii loo aasay balse waxa qasaba inaynu dul tagna qabuurta si aanu ogaana xaqiiqada waxa ku duwan goobtaas waxaanu helnay ogolaanshaha inaanu sawirno qabriga balse markii dambe waxaanu soo farageliyay xubno kamid ah ilaalada qabriga iyagoo oo hadal dheerna u qasbay in aanu ka baxno goobta isla maalintii labaad maanaan helin si aanu u sawirno qabriga iyo waxa gudihiisa ku jira toona waayo waxa naga hortaagnaa ciidamo dheeraad oo goobta la keenay isagoo waxaana loo sheegay in ciidamada la soo kordhiyay ee Faransiiska iyo Falastiiniyiintu aanay ogolayn in la sawiro qabriga laakiin waxaanu diyaarsanay kamaradaanu soo dhignay goob u jirtay ilaa 300 oo tallaabo si aanu halkaas uga sawirno si toos ah cidda galaysa iyo cidda ka soo baxaysa qaabka baaritaanku u socdo laakiin isku day dheer kadib noomaysa suurtagelintaas inaan cadeymo dheeraad ka helno
xubnihii baaritaanku ma imanin goobtaasi laakiin 5 November waxaanu helnay xubno ka socda baaritaanada Switzerland kuwaas oo ka gudbaya goob la isku baadhay oo kamid ah daanta galbeed waxaanaanu dabagalnay annagoo ka qaadnay sawir qarsoodiya balse markii dambe loo ogolaan waayay inaanu qaadno sawir labaad ciidamadu sheegeen in loo ogolayn sawir iyagoo sheegeen hore uu sheegeen haddana ay ugu cilniyeen in loo ogolayn sawir iyo in goobta sawir laga qaadato markii baarayaasha ay calaamadiyeen goobtii way ka yimaadeen Al-Jazeera waxay kaga soo horeysay hoteelka ay degi lahaayeen taasi oo aan waqtigaas wax gaar ah joogin laakiin markii ay iyagoo soo gaadheen ku shaqeysanaya banaanka qolalka ay deganaayeen waxaa loo sheegay in aanay ogolayn in ay ciidamadu ogaadaan arrintani balse waxay kadib waxba soo gaadhay goobta ciidamada iyagoo uu sheegay in ay la hadli doonaan askarta haddii mar dambe lagu arko halkani waa 10 November waa barqanimo la xusayo 8 guuradii ka soo wareegtay markii uu dhintay Yaasir Carafaad waxaana goobta ku sugan xubno badan oo la soo shaqeeyay oo kamid yihiin siyaasiyiin asxaab u ilaha Yaasir Carafaad iyo sidoo kale xubno si gaar ah oo la soo shaqeeyay waxaana laga doodayaa qaabkii loo daaha qaadi lahaa xaqiiqadani laakiin ma aha meel ay ku sugan yihiin inta badan xubnihii la soo shaqeeyay Yaasir Carafaad oo waxa jira qaar badan oo ka maqan goobtani توفيق تراوي وانك ugu sareeya baaritaanka kooxdani waxaana uu warbaahinta u sheegay in aanay ogolaan Al-Jazeera soo farageliso arintani ilaa inta la dhameynayo xaqiiqadani ay weydiiyeen in suurtagal tahay inay goobta gali karaan waxaana uu sheegay in aanay jirin inay goobta gali karaan ilaa la isku raaco dhammaan xubnaha ka shaqeynaya waxaana ay sheegeen oo sidaan waxaan loogu diiday inaan xaqiiqada soo bandhigno waxaana uu sheegay in aanay waxaas waxba ka jirin oo aanay goobta gali doonin mar dambe halkani waa goob loogu talagalay inuu ka dhaco shir qarsoodi oo laga wada hadlayo qaabka loo soo saaray Yaasir Carafaad iyo qaabka loo soo bandhigayo meedkiisa iyo qaabka loo geli doono baaritaanada waxaana muddo dheer iyo wada hadallo dheer kadib loo isla meel dhigay in la soo bandhigo lana soo saaro meedka Yaasir Carafaad samar ahaantaasina loo soo bandhigo beesha caalamka dhibaatada loo geystay shacabka reer Falastiin 11 November waxa uu Maxamuud Cabbaas dib u cusboonaysiiyay dhimashada xuska Yaasir Carafaad isagoo oo goobtaasi ka sheegay go'aankii la gaaray oo ahaa in la soo saaro isla mar ahaantaasina dibadda la soo dhigo meedka Yaasir Carafaad si loo helo cadeymo dheeraad ah talagalay Naasir goobta ka hadlo laakiin wada hadallo ay galeen isaga iyo Tawfiiq Taraawi Maxamuud Cabbaas iyo xubno kale oo goobta ka howlgalay waxa la isla meel dhigay inuu Cabbaas oo kaliya shaaciyo go'aanka Naasirna uu ka mid noqdo xubnaha hogaaminaya baaritaanka waxaana uu Cabbaas goobtaasi ka sheegay in wada hadallo dheer iyo munaaqashaad dheer kadib la isla meel dhigay in la soo saaro Yaasir Carafaad xaqiiqadiisana ay ka howlgalaan xubno ka mid ah baaritaano ka socda dalka Switzerland xubno kale oo ka socda Faransiiska iyo sidoo kale baaritaano xubno baarayaala oo ka socda caasimadda Moscow ee dalka Ruushka markani waa markii ugu horeysay Al-Jazeera ogaato in xubno Ruushka ka socda ay ka howlgalayaan hawshani waxaana sidoo kale ugu dambeyntii ay ogaadeen in Switzerland qudheedu ay hawsha qayb ka ahayd markii hore la isku ogaa laakiin ay dib kaga soo biireen xubnahani reer Moscow ee dalka Ruushka ka socda kuwaas oo noqonaya xubno ka caawinaya dhinaca sharciga iyo baaritaanada kiimikada محمد رام ومد كمدا حبناها كسو شقيني warbaahinta Falastiin muddo dheer waxaana aan weydiinay qaabka ay Falastiiniyiin tuulo colaytameen sababta ay Al-Jazeera wala colaytamayaan waxaana uu sheegay in ay Al-Jazeera ka aaminsan yihiin xubno doonaya inay dib u kiciyaan guga Carabta kuwaas oo ka dhax bilaabaya gudaha Falastiin isla mar ahaantaasna khalkhal gelinaya ammaanka iyo isku duubnaa shacabka reer Falastiin sidoo kale su'aalaha ay weydiiyeen waxa kamid ahaa
muxuu yahay ujeedka maxamuud cabbaas uu diidan yahay in baaritaanka Al-Jazeera soo farageliso waxaana uu sheegay in xubnaha sarsare uu ka maqlay hadalladan ay ka mid yihiin in ay sheegeen in aanay doonin in Al-Jazeera arrintan waxba ka ogaato oo ay sugto xilliga la soo bandhigayo ee warbaahinta dhigeeda ay wax la qaybsanayso balse waxa sidoo kale uu hoosta ka xariiqay in sababta looga soo horjeeda ay tahay in Al-Jazeera tahay mid ka mid ah warbaahinta ugu cadcad caalamka 12 November waa dhowr cisho kadib markii la gaaray go'aankaasi waxay Falastiiniyiintu diyaarinayeen qaabkii hawshan loo geli lahaa iyo sidii baaritaanka loo fulin lahaa. waa 13 November waxaanu ogaanay inay tahay xilligeedii aanu hawlgeli lahayn. waxay ka shakaysanayaan in la diyaariyo baabuur dheeraad oo arrintan laga hawlgalayo iyo sidoo kale in hawsha si kale loo galo oo qarsoodiya balse waxaanu annaguna isku daynay inaanu ku wareegno wadooyinka caasimadda ama magaalada uu ku haysan yahay Yaasir Carafaad ee Ramallah si aanu u ogaano xaqiiqada waxaanu gaari naga horeeyay saaranay kamaradaydii waxaana kamaradu ay qabatay baabuur kala duwan oo uu soo horeeyay gaari noocan oo kala iyo sidoo kale gaari kale oo madow oo goorda meesha soo maray iyo sidoo kale xaqiiqada markii dambe oo noqotay inay baabuur badani meesha marayaan taasina ay keentay in aanu ogaano in ay hawsha meesha ka socotay tahay hawl qarsoodiya oo aan loo ogolayn in telefishinka Al-Jazeera iyo telefishinka kale toona ay baahiyaan laakiin waxa ay nagu qasabtay taasi aanu ku wareegno wadooyinka muddo dheer iyaguna ay nagu daba jiraan si aanu hawsha ula socono waxaan wadanay xubnaha horkacaya kuwaasi oo nagala qayb galaya hawshani markii aanu ogaanay in lagu daba jiro arrintuna ay tahay haddii la ogaado in loo gudbinayo waaxda sirdoonka isla markaasina ay hawsheedu fashilmayso waxaanu go'aansanay in hotelkaanu deganahay qolkaanu ka deganahay shinta taalaanu ku xidhno kamarad qarsoodiya si ay noogu duubto dhaqdhaqaaqa goobtaasi ka dhacaya si haddii goobta loo soo galo aanu ogaano sida wax u jiraan waxaanu markii dambe helnay xubno soo galay qolka kuwaas oo qaarkood ay baarayaan alaabtii aan meesha ku diyaarsanay halka kuwa kalena ay baarayaan shantadii aanu kamarada ku dhajinay lafteeda waxaanu garan weynay sababta ay xukuumadda Falastiin ugu daba jirto saxafiyiin noocan oo kale oo soo bandhigay qiso noocan oo kale oo adag laakiin waxaanu goor dambe helnay qofkii shanaad oo ahaa qofkii qolka soo galay oo aan wax yar kadib ku aragnay isla banaanka hotelka yar ayaa ka hadhay soo bandhigida xaqiiqada iyo sidoo kale sidii loo qaadi lahaa balse xukuumadda Falastiiniyiintu waxay ka cabsi qabaan in ay arrintan isbedesho oo ay noqoto dacayad la soo gudboonaata iyaga iyo dhammaan dalalka ku yaala bariga dhexe oo ay ka feejignaadaan in arrintan ogaato telefishinka Al-Jazeera ka hor intaan la shaacinin